السلام عليكم أصحابي وايد وسلامي فضلا هدي هذا channel سبسكرايب كرينين أو العصب تاعي اللوبي الناس سبسكرايب كريسة channel فيديو waxaan ku talagalay inaan maanta ugu dambeyn sameeyo video week iyo weeks iyo days waxay soo qaadataba waxa aan in badan dhaxnaa bal u kaadinayo aad ka fiirsatid waxa aad daaysan ugu dambeyn waxaan go'aansanayaa video aan sheego because information waxaan moodayaa ama aan u maleynayaa inuu markan ugu filan yahay waxaa jirta muddaba soo jirtay inuu wadanka dadka Soomaalida ee dhaqaatiirta u imaanaya ay soo badanayeen waxa kale oo jirtay dadka Soomaalida inta badan dhaqaatiirta u imaanaya inay ahaayeen dad inta badan Djibouti ka yimaada Soomaaliya dadka dawladda deegaanka Soomaalida ka yimaada Ethiopia aad ma badnaan jirin anyway ugu dambeyn dadka Soomaalida oo dhaqaatiirtooda ku soo batay calaalka fara badan ee jir awgeys in badanna waan damcaynan arrinkaas dhaho laakiin inaan waxoogaa ka fiirsado ayaan jeclaa insha Allah ugu dambeyn waan ku dhawaaqi doonaa waxaana jirta arrin dadkii Soomaalida dhakhtar ku imaanay wadanka dhib badan baa haysta way dhacan yihiin waa la dhibaa way dhacan yihiin way rafaadsan yihiin barkoon iyaga xataa dhakhtarkoodii sababtii u yimaadeen aysan dhamaysanin bay iska noqdaan waxaa jirta sababaha ugu waxa weeyaan laba sababo way jirtaa laba sababood mid waxay tahay qorshe la'aan midna waxay tahay dhicitaanka iyo waxa qofkani inuu Soomaali maxaa dhacay iyo waxyaalaha uu sameeyo uusan garaneyn meelaha uu aaday iyo qofka uu la hadlay iyo waxaas uusan garaneyn awgeed Soomaalinimo intuu ku aamina xataa marka qaarkood inuu isagu dhacmayo dhicitaanka qayb libaax waxa ka qaadanaysa dadka Soomaalida ee Istanbul degan badkood qaybta inta badan waxa ku dhaqanta aad yani qof dad aad u fara badan oo wanaagsan baa jira anigu isku ma darayo laakiin aad dad u xun baa jira magaca Soomaaliyeed walba kula sheegteen laakiin aad dad xun baa jira wax xaqiiqatan waxa jirta dadkii Soomaaliyeed inta badan caafimaadku imaanay inay haddana mar kale yihiin dadka inta badan ugu daciifsan dadka oo ah hooyooyin waliba da'yada dambe ah aabooyin iyo wadaado da'da dambe ah sida 60 meeyaha 70 meeyaha ku dhuftay oo kale inay yihiin oo kale xanuuno haddana maxaan dhahay xanuunadii oo markaasna aan special u kala ahayn sida haduu xanuunkaagu adag yahay oo xanuun yani la soo waayay daawadiisa laga soo kari waayay yani dhankaas Afrika oo u timaado Turkiga inaad xanuunkaaga meeshii lagu xalin karo aado sida cancer wax la goynayo waxa stage sare gaaray maxaan levelkii u dambeeyay gaaray level 3 ba dhaxda aragtid yani stage 3 whatever يعني waxaas aad u imaanayso oo kale iyo marka aad u imaanayso xanuun laba dhakhtar oo jigjiga jooga ama laba dhakhtar oo Djibouti jooga ama laba dhakhtar oo Soomaaliya jooga inta isku qabsadeen aad tiriniyo anigu waxaan ku xalinayaa inaan dibadda aado aad u imaanayso dad in siyar baaraan iyo waxa u imaanaya dadkaas oo kale waxa weeyaan way ka duwanaanayaan dadka specialka xanuunkoodu aad meel sare u gaarsiin dadkaas oo kale in isbaaraan iyo xanuuno noocaas u imaanaya xaqiiqatan xalkoodu maaha in Istanbul tagaan because iyagu dhib yartaa in arrintooda la xaliyo arrintooda iyo waxa weeyaan bakalaata in meesha dadka lagu dhacay ka fogaadaan oo ah meelaha dhaqaatiirta ugu lacagta badan ay joogaan oo maxaa isagoo branch kale isaga uu la eegon ka maxaa quality yareen oo quality-goodu isku mid yihiin kalaata meel yar oo 40 saac hal saac meelaha u jirto sida hadda meesha aad falaadheeda ku aragtay meelahan oo kale jooga isaguna halkaas oo kale joogo waa kana tusaalahan ama kan oo kale inuu branchiisa halkaas ku yaalo oo kale dan inuu ayr ka lacag yar yahay fiiri inuu ka lacag yar yahay ka halkan ku yaala in halkii sababtoo ah inta badan ajaanibta halkan kuma badna waxa ku badan dad badan oo Turkiya halkaas ajaanibta badan ay ku badan tahay sida dhammaan ajaanibta Afrika ka timaadii adduunka Istanbul bas ayaa moodaysa inay Turki tahay marka taariikhdeeda lagaga sheekeynayo markaas waxaan rabaa inaan marka ku sheego adiga halkaagu dhibiga halkaagu waxa weeyaan kalaata inaad ka fogaato meesha dadka lagu dhacayo iyo maxaan dhahay dhaqaatiirtaas maxaan dhahay adiga ku dhacaysa inaad aado meel dhakhtarkaaga iyo waxaaga dhan yahay qiimo la fahmi karo wax aad ka soo bixi karto guri aad deganaan karto wax aad bixini karto lacag aad bixini karto xataa markuu ilaajkaagu ku dhamaado xataa wax aad adiga fitamiinkaaga iyo borotiinada cuntooyinka u baahan tahay aad ka heli karto raqiis oo iska degan karto wallahi hadda waxaan arkaa dad gobolada yar ee imaanaya gobolada u dhow Istanbul meelaha kabsar la dhaho Kocaeli la dhaho siba Kocaeli la dhaho Izmir la dhaho imaanaya oo kale oo markaas maxaan dhahay waalida markaas waxaan dhahay anigu yaa sirtan u sheegay waa arrin aad muhiim ah waxa weeye iska raaxaysan oo iska degan yihiin meesha yar aadayaan waxa weeyaan basba iska raaci waa halkan wax dhicitaana ma jiro buuqan iyo qofkan xataa isagoo stress kala ku darsamay caasimada ma jiro haween danto hadaysan kugu qasbaynin maxaa halka u aaday hadii danto kugu qasbaynin halkan imo kama dhakhtar fiicna Istanbul kama dhakhtar fiicna halkan wallahi kama dhakhtar fiicna ani hadda search halkan markaan ku qoray top Turkish hospitals baan ku qoray right search-da u dambaysa halkan waxa ay soo baxday
halkan waxaa ii soo baxday top Turkey hospitaliska dhammaantood distansiyada ay ku jiraan iyo waxaas ma wada aha mid distansiyadooda ay tahay dhammaan inay Istanbul ku wada yaalaan ma ahan xaqiiqatan Istanbul dhakhaatiir fiican way ku yaalaan Istanbul dhakhaatiir way ku yaalaan caasimada wadanku Istanbul ma ahane waa Ankara dhakhaatiir fiican way ku yaalaan dhammaan Turkina waa wadan yani sare oo dhakhaatiirtiisu waxa weeyaan wadan dhakhtarka quality-giisa la qiimeynayo weeyaan dhakhtar fiican ma ku yaala again yani medical park-ga ku yaala Ankara tusaalahan medical park Istanbul ku yaala medical park Izmit ku yaala dhammaan way wada quality fiican yihiin haddana way wada kala lacag jaban yihiin so adiga maxaad u diidaysaa inaad quality-gaaga arrintaadan xallin kara lacagtaaduna ay jaban tahay inaad aado waa haddii uu dhakhtarkaagu xanuunkaagu noocaas yahay anu imaada dadka stage-kooduna nixitaan laga naxay oo kale inta badan dadka dhakhaatiirta usoo diraya dadka waa dad ama ay dhaleen ayagu ama waa dad maxaan dhahay ama carruurtoodu ay qabaan oo kale sida hadda gabartaada wiilka qabo oo kale inuu waxaas kusoo diray oo kale dhakhtarka noocaasa dadku way ku khaldan yihiin adiga kusoo diray inay iska kaa soo diraan because dadka aad soo diraysaan wallahi way rafaadsan yihiin waxaa laga yaabaa islaantu markay iska soo noqoto laga yaabo adiga soo diray inaad tahay gabarteeda wiilka qaba inaad tahay oo qof lacag la aad tahay inay u cabsato gabarteeda in haddii ay adiga kugu badiso waxaas iyo dhibkaas inaad wad u furto oo dhahdo waxan dhan baa dad furto soo israaci maayaan yani future-ka wiil gabarteeda intay ka fikirto inaysan dhib ka sheegin haya isagaba dhimato waa laga yaabaa dhib la xallin karaa again haddana waxan waa qadar yani waa qadar ilaahay iyadoo dhakhtarka ugu wanaagsan aad joogto ayuu qadarkaaga maxaa meesha lagu xallin karo uu ahaanaya so waxaan rabaa inaan kuu sheego dadkan imaanaya haddana stageka xanuunka ugu sarsareeyahayo haddana maxaan dhahay dadka waaweyn again haddana dadka nooca xaaladooda ay tahay ayaa waxaa ku dheer haddana inay ka imaanayaan meelo tuulooyin iyo baadiye degmooyin iyo gobolla inay ka imaanayaan inta badan gobolla iyo in laga soo qaado wallahi way rifaadsan islaanta halkaas iska fadhidaa waxa weeyaan ma garanayso dadkan cad iyo waxaan ma garanayso marka islaantii la weydiiyo maxaa kugu dhacay eedo muxuu yiri translate karay waa iska leedahay qofkan translate karaynaya waxa weeyaan waa qof ay Soomaalnimo ku kaxaysatay qof ay ku kaxaysatay maaha lacagtaasna isku ognaay wuu dhacaya islaanta marka uu translate-ka u sameeyo waxa weeyaan hadalka lagama goray sida halkee ku xanuunayso wadnaha ay xanuunaya ayay waa cunaha ay xanuunaya bas intaas ku soo jiraan afka xanuunaya sheegi mayso waxa weeyaan again ninkan uu translate karaynaya Soomaalnimada oo ay ku kaxaysatay waxa weeyaan Soomaaligan waxa laga yaabaa translator-ka marka uu dhameeyo inuu isaga oo dhakhtarka raaciyo lacag inuu dul saarto gaba islaanta laga qaadayo يعني أصير قسم كما إنه إله كعبصة قسم بيكون هاي مكان إله كعبصة لكن قسم ما سلا وقع عبصة نسمع وقع عبصة الحقيقة إنه إله بري عبصة ليس تحس إله بعد كلا حساب تمي ما ذكرت الصومال لماذا ما ين إسلام لمتى يعني وحويان الصومالي ويان وانكوك حسنا يرختك ويتنا سليت كراني على كتبه والله أنا تسألني أد تضيع وحمي زوج حتى لا عبصة هذا الكائن البعض ونكون ديرني waxaan dhahayaa hadaa Soomaali tahay bas aad kuma kaxaysanaya meel waxaan ku kaxaysanaya inaad tahay qof ama Ilaahay ka cabsado adigu oo inta Ilaahay u caawinaya ama in aan wax isku ogaano qiimaha dad xaqiiqadanaysa in wax isku ogaano waxaasoo wax maxaan dhahay macquul oo bixin karo adigoo level-kayga eegaya adoo background-kayga eegaya inaan wax isku ogaano oo bixinayo dadkaasi marka ay saa tahay arrinta noocaas dadka ay haysato iyagu xalkooda maxaan dhahay uu ka duwan yahay kuwan xalkooda aan hadda soo sheegnay kuwaas ayaga aniga fikirkayga waan dhiibin idinkana fikirka idinka tag because arrintan waa arrin wada khusaysa waa hooyooyinkeen waa aabooyinkeen waa dad aad u rafaadsan waa dad inaga noo baahan xaqiiqatan haddii aad wadan kale ku noosho adigu tahay qofka lacagta bixinaya iyo haddaad tahay qofka adigu kaxaynaya dhacaya wallahi waa dadkeeni waa dadka anaga maxaan dhahay na dhalay laba jeeraba way dhimanayaan oo da' bay leeyihiin laakiin again adiga oo dhimanaya haddana moral si oo inaad wiilkoodii tahay tus dhakhtarka dad translator una dad ku caawinayso fadlan translator-ka ku caawi haddii aad leedahay lacag baan ka qaadanayaana inaad ka qaadato lacag iyada oo goshaay marka koowaad inaadan dhicin sida $200 gelin aad ka qaadayso ama saxad aad xisaabinayso waxaas wax adduunka laga yaqaan ma waa dhicitaan again sababta ugu wacan dadkaas inay lacagta dadka ka dhacaan insha Allah video kale ay ka sameeyay because arrintaasna waa muhiim waana idin sheegaya sababta insha Allah iyo dhibabka ay kala kulmayaan because hadan doo campusat ayaan kaas ku daraya videogan bas ayaan hadan aan ka hadlo aan muraajiciyo ama aan faahfaahiyo kama baxayno xaqiiqatan kama baxayno dhibku aad u balaaran yahay laakiin hadii loo hadli waayo dadka kuwa u hadlay aan wali aanan aragna waan ku inspire gareynaya waana ugu mahadcelinaya kuwa kalena waxaan leeyahay fadlan idinkuna ka hadlo arrinta ka dhibta fikir video u share video gaarsiiya waxa weeyaan halkooda kuwa waxaan ku yiri waxa weeyaan inay qorshe soo sameystaan aniga waa fikirkayga in qofkan intuusan soo tagin oo internetka ka fiiriyo oo laptop iyo computer iyo waxaas intuu qaato oo dadkaas yani adoo adan fahmin gabartaada wiilkaaga ama wiilkaaga gabarta qabo way garanayaan fadlan balan daji qorshe daji intaan wadanka imaanin
xanuunkaaga eeg levelku uu yahay eeg xanuunkaaga eeg maxaa ku haya adiga sababtaad waddanka u aadaysa maxay tahay qoro deedna waxaad samaysaa qorshe dhigo internetka ka baar xanuunkaaga dhakhaatiirta ku wanaagsan waddanka ku wanaagsan haddii aad turki imaanayso turki caafimaad dhakhtarkaaga dhakhaatiirta ku wanaagsan fiiri dhakhtariyadu waxbay special ku siiyiin specialada dhakhtarka ku eeg again waxaad eegtaa maxaan dhahay meesha laga heli kara dhakhaatiirtaas waxaad eegtaa gobolada iyo meelaha ay ku kala yaalaan waxaad eegtaa sida ay u kala qiimo jaban yihiin waxaasoo dhan eeg kabacdi transportiyada iyo inta ay centerada u kala jiraan eeg airportiga inta ay u kala jiraan eeg aduu markaas iyada waxaad samaysaa airportiga maanta ka imaanaysa dhakhtarkaaga ayar agdeg adooba ogba dhakhtarkaada aadayso agdeguuno ayar dhakhtarkaaga aadabtay waxaad lismaysaa arrintaada waxaad lismaysaa information fiican baad ka haysataa dhakhtarkaaga waad ogtahay meesha uu ku yaalo waad ogtahay meesha aad degan tahay haddii ay center tahay haddii center tahay waad ogtahay haddii center ka fog tahay inay center ka fog tahay waad ogtahay yani waxaas dhan samee mid kalena aan kugu dari waa bonus tani waxa weeyaan mid kale oo u baahan inaad qof waddanka jooga uu kula xaliyo tan adiga keligaa ma xallin kartid ama haddaad xalinaysa xataa waxay u baahan tahay inaad translator heshid waxa weeyaan inaad sigorta heshid arrintan sigortada waxa weeyaan dadka waddanka degan way fahmayaan macnaheedu waa insurance inaad maxaan dhahay haysatid health insurance mar walba health insurance lacagtaada ayuu qayb ka jebinaa dadka soomaalida waxay sameeyaan baasaboorti bay ugu tagaan dhakhtarka baasaboortiga markaad ugu tagayso ugu lacagtaa waa la dhawal garaynaya lacagtii wax yar lagaaga qaadanaya waa la dhawal garaynaya haddii aad laakiin tagto adiga oo qaadanaya maxaan dhahay insurance waddanka ka qaado oo markaad waddanka saa usoo gasho insurance qaadanaya insurancagaas waxaa ku qoran list dhakhaatiir badana oo dhakhaatiirtaas qayb ka mida lacagta ay 45% off tahay yani lagaa dhimayo 80% waxaa ka wadaa 20% 30% lacagta lagaa dhimayo waxaas dhan insuranceyada ayaa wixii saaran insurance qaado insurancegaas dhakhaatiirta listiga adoo ka fiirin ama haddaad dooni dhakhtarka aad rabto intaad qaadato kabacdi insuranceyada dhakhtarka laga heli karo weydii insuranceyada kuwa haysta kabacdi dhakhtarka insuranceyada laga heli karo insuranceyisa qaado insuranceyagaasi aad buu kugu caawinaya dhakhtarka aad markaa aadayso waxbaa lagaa deynaya wax fiican baa lagaa deynaya taana waa fiican tahay inaad ogaato kalaata waxay ku imaanaysaa inaad adigu marka kuwaad qorshe aad dejisantahay aad ku dhaqaaqayso insha allah taas waa iga fikir waana qaabka loo xallin karo waa iga fikir laakiin waa arrin aad muhiim والله وأرن آدم كوي يو محمد رأي إسكان نقضي أرنتي أنتي وجانين دنتيبة أما محمد نقضي يو هذا حنون نقضي إسكان قبولي على عقد كبحث وطن كواس يعني إلى أنو دم دراف بيكوس دم أرنت هذا أنا هنا صار عندي والله أنا جاي كوس عادي يعني جاي صار عندي أنا كهذا هذا كهذا كرنو يعني محمد مركو قال لا هاي محمد هذا فعل وجي سنكرين ويران عادي أدوك بتاعي خوف كصادره ويران واحد كجي سنكرت أول هاي سنوات إن أدوك مركو عاد صادره سؤال واحد أسميه مركانا عاد صادرسان wax meel aad ugu ogtaad soo dirto waalidkana iska soo direysaan way rafaadsiin again marka la aad bay u rafaadsiin hadaysan idin sheegaynin waan idin sheeg wadanka waan la deganaa kuwa xun iyo kuwa wanaagsanba waana na kala garan karaa wax because still waxa uu yaala maskaxan ku kala saari karo caanaay biyaha right so waxaan weeyaan fadlan arrintan serious loo qaato wallahi arrintan serious loo qaato haddii aan wali video ku qancin waraysa dadka dhakhaatiirta u tagayo lacagaha laga qaato warayso غير caadi weeyaan waa la rafaadiyaa dadka kale halkan iyo meelahan gobolada fogfog aan gobol aad kuma leh gobol bu ka xun yahay saanaanba adigu yani xumaan kama sheegay ka fog yahay Istanbul haddii aad albaabkeeda dhinaca kale aado waa magaalo kale سؤال magaaladaas hadaad aad gasho kale kama dhigna inaad gobol aaday fog waxa weyn Istanbul tarafkeeda joogta waa meel meesha ka jaban بليز لا ciyaar dadkan oo waxaad samaysaa adoo qiimahaaga adoo ka fiirinaya caafimaadkaaga adoo ka fiirin iska xalli waxan yani waxyaalaha aad ilaahay ku aadan eed ku saari karin baa jirto ilaahay baa Soomaaliga dhigay ilaahay baa wadankayga iga burburiyay waxa soo meeshan ana imaaday kabacdi ana waxan eedaas dhanba meesha ma taalo waad xallin kartaa wax la xallin karo kuwan kale iyagu insha Allah caafimaad darrada aadka u daranay hayso sida arrimahaas waaweyn ilaahay ha caafiyo waa naga duco takalna xawiyaan qorshada jista fadlan dadka aadan qorshe aan garanayna kuwa kale ayaa garanaya dadka waalidka diinta ku soo koray diinta ku dhiman doon ilaahay hadaayo kuwa waxa jira aad barteen wax oo iskuula ku beeriseen kuwaas baa garanay waxaan ka sheekeynayo intaad qorshayaashaas qaadan u dajiyo fadlan dadka insha Allah fikirkayga fikir ka wanaagsan hadaad haysan ugu dambeyn waxana waa arin guud oo nabad ku saaciyo waa arin in la xalliyo u baahan waa dad dhakhaatiir oo halkan u jooga waxaan ka wadaa dad xanuunsan oo dhakhaatiir halkan u jooga dhakhaatiirta Soomaalida halkan wax ka barata adoo adeegsanaya dadka Soomaalida wanaagsan waxaasna hadii aad qacan ka geysan karto waa arin ilaahay adagtiisa ka helayso hadii kalena fikirka ugu wanaagsan maxaan dhahay dhiibani karto fadlan dhiibo
ayar hoosta commentiga ku qor fikirkaas baa ila saxsan samee haddii kalena la wadaag dadka iyo communitiga aad dhex joogto insha allah dhammaan waxaan aaminsanahay waddankan joogo kama dhacaysa in waddan walba oo aad adigu ku nooshahay ka dhacaysa arrinta oo dibada haddii aad indiya ku nooshahay dad badan oo indiya dhakhaatiir u yimaadaa jirta waxaanan aaminsanahay inay dad badan ku rafaadsan yihiin haddii wayaan maxaan dhahay aan ka dhaqaaqo waddanka aan joogo waddan islaami indiya islaamba maahay waddankan muslima oo dad islaami ku nool yihiin haddana ay saa u baalmartay lacagtu oo waxaa samaynayaan indiya oo waddan islaamnimada aad u neceba marka la dhaho islaamnimada ku xad haddana aan dan kaa lahayn waddanka indiya taqaana haddana waa dhihi karaba waa waddan markii turkiga loo eego dhaqaalihiisu aad u hooseeyo aan dhihi karo waan ka filan karaa taas yani waa probably waan qiyaasayaa un ya so fadlan insha allah waxaan rajeynayaa inaad aniga haddaad xataa ugu yaraan aad maxaan dhahay videoga ku qancin aad ugu yaraan fahmi karto waxaan ka hadlayo iyo arrinta aan ka doodayo inaad fahanto insha allah fadlan fikirkaaga ka dhiibo sidan kula tahayna insha allah u dhig cayla-aan iyo waxaas anigu waxaan ku leeyahay subscribe garee channelka mar un haddii aad videoga aan kuu sheegayo aad u fahanto basaati inuu muhiim yahay fiiri haddaad u fahanto inuu muhiim yahay un baan ku leeyahay fadlan subscribe garee oo share garee videoga amaba like garee kabacdina la wadaag asxaabtaada ama adigu point ka qaado u sheeg laakiin haddii aad videogan u arkaysan aan adigu caayayo oo adiguba tahayba laga yaaba inaad qofka maxaan dhahay ka ganacsado tahayba waxaas dhibka ku haya dadka amaba aad tahay qof waxaan u arkay Soomaali inaan ku xadgudbay oo u arkay ilan aniga fikirkayga waad ka duwanaan kartaa kuma lihi marka adiga subscribe garee taas waxay ka dhigan tahay inaan maxaan dhahay qof aan ku leeyahay caawi haddana again aan xaayayo ma garanaysa arrintaas waa ceeb yani waan ogahay so saa kama wadi kalaat waxaan ku leeyahay haddii videogan aad wax ka dareentay gool ama point yar aad ka fahantay markaan baan ku leeyahay subscribe garee insha allah like garee oo nala ogow insha allah nala wadaag fikirkaaga ugu muhiimsan waan aaminsanaan idiga wada fikir fiicantiin fadlan mar kale waxaan leeyahay insha allah kusoo dhawaada channelkeena intaynu kadamba iska arkayno insha allah asalaamu calaykum